canshuurta waa qaali askariga qaadka ma gadan karo anagu nagu dilaaya habeenii maalin waa la rafaadsanaya ganacsatadii qaadka ee magaalada Kismaayo ayaa durba cabasho ka muujiyay qaadka magaalada Kismaayo oo maalmo ka hor Axmed Madoobe oo u xiray ganacsada degan magaalada Nairobi oo isaga ay shuraako ku yihiin ganacsiga dadka magaalada Kismaayo ku dhaqan oo hore uga caban jiray sicir barar dhanka nolosha ah ayaa mar kale la soo daristay sar u kac qiimaha qaadka iyaga oo sheegay in madaxweynuhu uu ugu sii daray noloshooda kadib markii uu ganacsiga qaadka ku wareejiyay shirkad uu isagu wax ka leeyahay walaabay waxay ka daaleeday roobo waxay ka daaleeday oo laga sugayo baan qaadan jirnay qaad waxaan ganaa gargaroorta ka keenay murdo $34 meelan ku ganaa anaga ma hayno 6 minjood waay qaad diyaar la soo saaray waay qaad gadan waay caaw saaka markii lagu dhiibo maqrib waxa lagu leeyahay qaadka lacagtiisa soo shub xagaan ka keenaa hadaan goos loo qorin bari marka tagto waxa lagu leeyahay maqribkii hore haysaa aniga shirkad baa haysataa lagu leeyahay waan dulmana madaxweyne qaadka masaakiina lagu koriyaa garooba gada ilmahooda ku rafaaday ninkii dhalaxba uu tarin agoomaa gada dadka magaalada ka qaxin madaxweyne nin dharagsan oo $100,000 wata oo Nairobi mukaafkada ka yimid yaa faa'iideynaysa waxaasna waa xaraan madaxweyne dalka xukumo waadiga wixii dulmi meeshan ka yimaadana aday dushaada tahay maxaan dadka barakacin waxa waaye guriga sheekadaada madaxweyne haddii ninkan dharagsan xoolo uu meel ka keen war loo heeniyo mukaafi kala soo baxay annaga kabaraan iyo suuqan taagnay cadceed baan fadhinaa saasa ilmaha ku korsanaa awal waan ku qanacsanaa laakiin hadda kuma qanacsanin annaga ilmaha naga kala qaxaysaa meel aan u qaxno meel aan ma garanayno madaxweyne waxa waa inaad si degdeg nooga soo joogtaan shiina waxa kale ka dhigo walaalaha madaxweynaha intaan kulmaysan Jubbaland waxaan baa ku direynaa abdi Soomaalida oo Kismaayo joogaana waa rafaadsannahay waan silacsanahay 12 maanta u shaqeynayna naaga u shaqeynayna $1 gaarigan ku raacayna ma heesano ilmaheena wax uma heesano waa rafaad marduuf qaado $34 joogaan gala gadaaya hal saac oo subaxnimo ka bar loo soo saaraya hal saac oo habeen marka taan waxaan leeyahay lacagta keen madaxweyne arinta ka dhawaaq anaga masaakiin baanana ilmaha ku qorsana wax uma heesano marduufkaas qaatay anaga hooyo aabano oo ku keen ilmaha ka biilna dugsiyan ka bixin jirna iskuulan ka bixineen biilan ka baxsaneen dhagihi noo xirna hal xabba noo xirno waan wada gadgadanay waan baahanahay anaga dadka Soomaalida daanana qaasatan gabadhii Kismaayo joogo kulli hal u hadleena ayaa abshiraadna raayay dibaayay madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan baaqayaan u diraayana wuxuu yahay sistemka qaadka hadda uu ku socdo shifta soconaya ma aha ilmaheena in af ku qaadano qaxootiyaasha iska dhibnaan rabnaa wax soconaya ma aha sistemkan qaadka dooniyaha ku celiyo aan sistem qaadkan uu ku socdo ha sameeyo marduuf qaado $6 iyo $34 wax macquul ma aha ninkan aad qaadka u xirtay wax macquul ah la imaado la soo shirtay wax macquul ah madaxweyne hadalkeena hada liisan gabdhahaadii aan nahay hooyooyinkaadii aan nahay hada liisan hadalkaas fariinteena haday ku soo gaarto looga soo jawaab madaxweyne canshuurta waa qaali askariga qaadka ma gadan karo anagu nagu dilaaya habeenii maalin waa la rafaadsanaya nin dharkan oo $400,000 wato oo magaalada joogo ma jirto madaxweyne laga soo gaar waa silacsanna waa rafaadsanna sidana xal loogu dhan adiga madaxweynaha wadanka